ururka saxadhoor oo ah urur caafimaad una istaagay kor u qaadidda wacyigelinta iyo kobcinta aqoonta caafimaadka ee bulshada ayaa soo qaban qaabiyey dood cilmiyeed ku saabsanaa maxaa sabab u ah in 10kii sano ay u dambeysay waddanka ku sii kordhaan cudurrada hepatitiska iyo kansarka xal ma laga gaari karaa dabarjaridda iyo daaweynta cudurradan dood cilmiyeedka ayaa waxaa marti ku ahaa isla markaana su'aalo laga weydiiyey dhakhaatiirta kale ah Dr. Maxamed Muuse Daawud iyo Dr. Daawud Muuse Sabriye waxaa ka soo qayb galay ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka gaar ahaan kulliyadaha caafimaadka iyo dhakhaatiir ka howlgala isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhaatiirta ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay kansarka iyo hepatitiska. Waxa ugu badan oo wadanka aan ku aragnaa waa esophaguska kan ku dhaca hunguriga ku dhaca waxa badan oo keena waxa kamid ah waliba dadka baadiyaha jooga ugu badan waxay isticmaalaan shaaha kuleyl ah waxyaabo kuleylka inta badan risk factor oo keena marka waxyaabo kale oo GIT gudihiisa ku jira oo keena bacteria waxa soo dhan way jiraan inta badan asagu lama xiriiro qaybtan oo drugs oo kale sida ama baalkan leeyahay smoking oo kale iyo inta badan lama xiriiro waxyaabaha looga hortagi karo marka asaga maxaa kamid ah waxyaabihii cuntada kale waa kamid cunto oo calories kale kuwa sajalka isku dadarsan waxyaabahaas la iska cunayo waxay yihiin waxay keenayaan midna la ogeyn waxyaabaha keenaya ku jirta wadankana way ku soo bateen hadda meel waxa jira dhan oo wax sajal maana wax kale lagu gadin oo dadka iska isticmaalaan marka waxyaabaha looga hortagi karo waxa kamid ah in wax cunto fresh qofka uu qaato waxyaabaha kuleelka oo iska yareeyo oo iska dhaafo sida badankood ay ogtihiin badan hepatitiska waa cudur ama virus sababo viruskaas oo ku dhaco liverka kaas oo keeni kara dhow inuu liverka shaqadiisa istaajiso oo uu gaari karo liver failure oo uu dambeyn uu gaari karo ayadana sidoo kale liver ama hepatocellular carcinoma oo inuu cancer isku bedelo liverka oo sababi kara meesha ugu dambeyn gaari karo complications uu keeni karo marka asaga wuxuu leeyahay noocyo kala duwan wuxuu leeyahay A iyo B iyo C iyo D iyo E haddaan isku qabanno A iyo E labadaas waxdaas oo dhib badan ma lahan oo isku mid labadooda A iyo E shaq ahaantooda iyo qaabkay u gudbaan labada wuxuu gudbaan loo yaqaano oral fecal transmission ama ah cuntada ama cabitaanada ama koobka ama adiga contaminated ka ah ku gudbaan waxaan loo yaqaanaa hepatitis A iyo E labadaas nooc waxay gudbaan gacmo wasaqaysan ama saxaradii ama cunto la cunay ama la cunay marka laakiin wuxuu dhib malahan badan maxay la badan ama noqday chronic disease oo badan wuxuu ku egyahay 2 week ilaa 6 week yani qofka uu ka baabaa yani jirka wuxuu ka sameeysanaa difaac mar dambe ku dhacayo ka soo qaybgalayaasha dood cilmiyeedkan ayaa su'aalo ku weydiiyay dhakhaatiirta su'aasha aan rabo inaan weydiiyo dhakhtarka midku ahaadaba waxay tahay waxaan la kulmay kiis ah hooyo qaadatay 2 doos oo hepatitis B ah waxay ii sheegtay in walaalkeed oo dibadda ka imaado uu kula taliyay inay qaadato talaalkaasi marka uu walaalkeed baxa kadibna ay ilowday haatan laga joogo muddo 8 bilood ku dhow xalka ugu wanaagsan ama talada ugu wanaagsan oo hooyadaas la siin karo maxay tahay horta talaalka hepatitis waliba wuxuu leeyahay wax la yiraahdo waxa jira talaalada qaar waxay leeyihiin waxa la yiraahdo minimum interval iyo maximum interval talaalo qaarna waxay leeyihiin no maximum interval leeyahay talaalkaas hepatitiska qofka hadduu 2 doos ka qaatay doos kale oo 2 sano kadib oo u baahdo dooskii saddexaad serialka si saxda u wadaa bis maahan inuu soo bilaabayo maahan ayantan waxaa soo badanaysa kansarka oo dhuuxa iyo kansarka dhiigga maxaa sababaa la dhihi karaa tasawur marka waxaa noqon kartaa 2 mid inay ku noqoto mid binaan ah oo aanan malignant ahayn iyo noqoto kansar ama inay kansar noqoto ama inay binaan noqoto marka maxay kala duwan yihiin ayadana waa howl kala dheer hadaan galno يعني ميلمنت wuxuu ugu duwan yahay ugu faafa laakiin marka binaan tahay tumor oo buro caadi binaan ama faafayso meesha kugu olisa oo la wuxuu baahanaa in laga bixiyo ama kuwa qaar waxay isku bedeli karaan long time kadib cancer isku bedeli karaan laakiin kuwa qaar inuu isku bedelaan sideed ahaanaysa tumor mid walba waxay leedahay waxay u gooni aan leenahay intaas ku jiraysa hadii ku jirka macaa wuxuu isku bedeli kartaa cancer ama Ramlo Maxamed Maxamuud gudoomiyaha ururka saxadhoor oo ugu dambeyn goobta ka hadashay ayaa u mahad celisay dhakhaatiirta
iyadoo isla markaana sheegtay inay sii wadi doonaan barnaamijyada wacyigelinta arrimaha caafimaadka bil walbana ay qaban doonaan dood cilmiyeedyada noocan oo kale. waxaan u mahad celinayaa dhaqaatiirta sharafta leh ee maanta waqtigooda iyo cilmigooda noo soo wareer ahaantii saadhoor horta waxay diyaar u tahay sideeda inay qabato wax walba oo ku saabsan ka hortag cudur markii la dhaho sida hadda aan u jeedno wacyigelin barnaamij gaar ah oo u sameynay oo ugu magac darnay sax toolkis. barnaamijka sax toolkis waa barnaamij imtixaan noqon doono bil waliba haddii ilaahay karaal noqdo waxaan looga hadli doonaa caafimaadka kaliya waxaan ku soo qaadan doonaa marbiicwaan wuxuu u dhici doonaa tusaalahan sida dood oo maanta sida aragno kale caafimaad ama wuxuu u dhici doonaa hab seminar ahaan ah. Cabdullaahi Maxamed, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, magaalada Muqdisho.